عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo cashirkeeni xiga class 4 maadada physics-ka waxaan hore group aan page u soo dhignay 6 cashir oo ku saabsan class 4 waxaan qaadanaynaa maanta cashirkeeni toddobaad wuxuu noogu bilaaban doonaa energy of simple harmonic motion tamarta la falgalaysa dhaqaaqa hirashada fudud ama tamarta la falgalaysa dhaqaaqa socodka hore iyo gadaal oo macluumaad ku fasiri kartaa cashirkeena booga muqarrar wuxuu ka bilaaban doonaa page-ka 14aad ayuu ka bilaaban doonaa marka aan hore u sii socon insha Allah haddii uu muuqaalka ku anfaco kanaalka waxaan ka codsan lahaa daawadaha daawanaya inuu subscribe noo saaro like noo saaro si saaxiibadii kale iyo walaalihii kale u baahan muuqaalka uu u gaaro marka wuxuu ka bilaaban doonaa cashirkeena hore u socon marka energy of simple harmonic motion tamarta la falgasha socodka hirashada fudud waa laba nooc waxay noqon kartaa tamartu potential energy tamarkeed ay noqon kartaa ama waxay noqon kartaa kinetic energy tamar dhaqaaq intaanan sida ula falgalayso simple harmonic motion tamarkeed tamar socod aanan hore u sii gelin qeexitaanka tamarkeed maxaa la dhahaa tamar socod maxaa loo yaqaanaa aan ku bilaawno waxaan ku horeysiinaynaa potential energy tamarkeed maxaa loo yaqaanaa potential energy is storage energy waa tamarkeed storage energy waa tamarkeedsan waaye which is taasoo u keedsanaanaysa which is iyada storage taasoo loo keediyo midood ayaa loo keedin karaa in gravitational field awoodda cufijid ahaan ayaa loo keedin karaa or ama waxaa loo keedin karaa stretched electric material shay lastig camal ah ee la kala jiiday ayuu ku keedsanaan karaa while as halka kinetic energy tamar socodku ay tahay is energy tamarta of any moving object shay walba oo dhaqaaqaya haas uu leeyahay marka si kooban u sheegno potential energy waxaa loo yaqaanaa waa tamar keedsan waa tamarkeed una keedsami karaysa laba hanaan inay gravitational field awood cufijid ahaan u keedsan tahay ama inay u keedsan tahay ama inay u keedsan tahay stretched elastic material shay elastiga oo la kala jiiday ayay ku keedsanaan kartaa oo awoodda shayga elastiga la kala jiiday dib u celinaysa ayaa loo yaqaanaa potential energy halka kinetic energy uu yahay tamarta shay walba soconaya uu leeyahay which proportional waxayna saamigal la tahay waxayna saamigal la noqonaysaa ama uu saamigal la noqonaya tamar socodkan ku jirnaaye waxay saamigal la noqonaysaa to the square of the velocity laba jibaarka loo sameeynaya keenaanka socodka of that object ee shaygaas uu leeyahay marka halkan waxaa noogu qoran ama noogu sawiran sawir elastic potential energy tamarkeedka ku jira shayga elastic ahaan sameynaya sida hadda nooga muuqanaysa labadan sawir waa moolo lagu kala xiray laba culeys marka koowaad mooladu waxay ku jirtaa stability oo lama jiidin wax culeys ah ama force kale oo la falgalayna ma jiro laakiin marka labaad moolada waxaa ku muuqanaysa waa la jiiday oo way dheeraatay sawirka labaad markaa fiiriso marka shayga intaan la jiidin wax energy oo la falgalay haba yaraatay ma jiro laakiin markii la jiido wuxuu samaysan doonaa waxaa la falgalay waxaa loo yaqaano kinetic energy oo lagu jiiday asna wuxuu yeelan doonaa potential energy oo diyaar u noqonaya shayga meesha laga jiiday in lagu soo celiyo marka falaarta halkaa kaga muuqanaysa waxaa ku qoran b iyo waxay u taagan tahay potential energy waxaa lagu helaa half kx square kna waa iska naqaanaa waa spring constant x waa inta la jiiday moolada intii la jiiday in la eg xoogeeda ayay yeelanaysaa oo dib ay ugu soo celinaysa booskeeda hore halka waxaa ku imaanaya potential energy laakiin inta aan la jiidin ka hor potential energy sida sawirka koowaad kaga muuqanaysa b e waa 0 maxay tahay wax tamar la falgasho ma leh tamar falcelin oo halka ka imaanaysa ma jirto sababtoo moolada stable ay ku jirtaa markaas x 0 ah marka hor u socono the potential energy storage tamarkeedka ama tamarkeedka keedsan waxaa loo muujiyaa in u ayaa loo muujiyaa wuxuuna ku keedsan yahay in spring moolo xasis that is stretched mooladaas oo la kala jiidi karaayo ama compressed la cadaadinayo at a distance fogaan x potential energy wuxuu ku keedsan yahay moolo dhexdeeda ku jira mooladaas oo ama la kala jiidi karaayo ama la cadaadin karaayo ilaa fogaan iyadoo laga jiidayo ama laga cadaadinayo from equilibrium position barnagaansho waxaana loo soo given by waxaa lagu heli karaa hanaanka ah u ina la mid tahay 1/2 oo la raaciyay kx square u waxay u taagan tahay potential energy u taagan tahay stored in a spring tamarta keedsan ee ku jirta moolada ay u taagan tahay an object with a mass shay walba oo leh culeys oscillating oo ku dhaqdhaqaaqaya on spring moola dusheeda also xataa wuxuu leeyahay kinetic energy sidoo kale wuxuu leeyahay kinetic energy oo leeyahay maxaa loola jeedaa marka
maadaama moolada ay dhaqaaq sameynayso markay dhaqaaqdo awoodda lagu dhaqaajinayo moolada lagu dheereena waxay noqon doontaa kinetic energy laakiin awoodda ay moolada kusoo noqonaysa ee barteeda hor kusoo celinayso waxay noqon doontaa potential energy noqon doontaa ama tamarkeed iyo tamar socod kala noqon doonaa marka ayaa la soo kinetic energy ayaa la soo gaabiyaa kinetic energy and potential energy haddii la isku daro tamar socod iyo tamarkeed la isku daro together guud ahaan giif waxay ku siin doonaan total mechanical energy tamar guud ay ku siin doonaan oo labada had shay babooga oo soo gaabinaya laakiin midda kore k in loo gaabiyo kinetic energy ayaa loo gaabiyaa laakiin total energy ayaa la soo gaabiyaa waxaa leenahay mechanical energy tamarta guud oo loo soo gaabiyo of the system hanaanka sida daraadeed marka formulahan fiiri oo u taagan total mechanical energy waxaa lagu helaa kinetic energy oo ah tamar socod oo lagu daray oo u taagan potential energy halka marka kinetic energy waxaa lagu heli karaa tamar socod waxaa lagu heli karaa half mv square lagu daray waxaan ku daraynaa potential energy waxaan ku heli karnaa half lagu daray lagu daraan half kx square meesha waxaa ku muuqata marka laba jeer waxaa soo laabtay 1/2 soo laabtay kan dhex iska tir oo hadda wax saxan ma marka waxay noqon doontaa daa soo koobo total mechanical energy waxaa lagu helaa k oo lagu daray oo u taagan kinetic energy oo lagu daray potential energy oo macnaheedu yahay half mv square oo lagu daray half kx square marka mv wuxuu u taagan yahay kinetic energy maadaama velocity uu ku jiro midkan kalena half kx square wuxuu u taagan yahay sidoo kale wuxuu u taagan yahay potential energy oo nagaansho ayuu rabaa shayga inuu celiyo sawirka marka aan eegno mar waxaa dhici karta marka kinetic total energy uu la ekaanayo يعني total energy guud ahaan wuxuu la ekaan doonaa potential energy waa markuu kinetic energy noqdo 0 soo ku noqon karaa kinetic energy 0 aan sharaxna marka wuxuu ku noqon karaa kinetic energy 0 marka ay qaybta loo yaqaan potential energy-ga x-ka uu weynaado x-ka intuu weynaado isku bedelo waxa loo yaqaan amplitude ama a isku bedelo oo formulaheeni hore ahaa 1/2k x square wuxuu noqon doonaa maanta 1/2k a square noqon doonaa waxa loo jeedaa mar waliba oo tamarta socodka ay 0 noqoto waxa isbedelaya tamarkeedka isbedelaya tusaale ahaan qaacideen hore waxay ahayd 1/2 qaybta kinetic energy ama tamar socodka ka hadlayna waxay ahayd 1/2k 1/2 mv square ay ahayd waa markaan kinetic energy ka hadlayno haddii v da ay 0 noqoto inta kale 0 noqdo sababtoo 0 wax lagu dhifto dhammaan 0 inay noqon naqaana marka qaybtaas ay baxdo waxaa marka isbedel ku imaanaya qaybtii ahayd potential energy-ga oo way badan doontaa meesha x ahayd ay isku bedel doonto amplitude marba hadda aragto ka square oo half uu ku horeeyana velocity qayb dambe 0 ah qaybtaas waa laga tagaa marka marna energy-ga ma baabao hadduu qayb ka tago qayb kale ku biira haddii lacala ay baabado kinetic energy potential energy badan doona haddii potential energy uu baabaana kinetic energy badan doona haddii si kale u dhaho haddii tamar socod baabado tamarkeedka ayaa badan doona haddii tamarkeedka uu baabaana tamar socodka ayaa badan doona waa ka marka dhinac kale fiiri mar kale haddana waa lagu siin doonaa oo qaybta kale lagu sheegi doonaa waxaad fiirisaa maxaa lagu sheegay sharaxada meesha noogu jirta maxaa lagu dhahay haddii falaarta shay la jiido hore loo jiido x-teeda waxay noqon doontaa barabaxa la aado waxay noqon doontaa dhanka balaasa la aaday marka laakiin amplitude-ka minus wuxuu soo celiyaa xag gadaal oo soo celin doonaa xoogii hore wax u jiiday waxa cagsi ku noqonaya maadaama aan naqaano restoring force-ga inuu cagsi ku yahay kii hore amplitude-ka minus soo noqon doonaa haddii laakiin shayga la cadaadiyo force-ga cadaadis duu keeno x-ka wuxuu noqon doonaa balaas soo noqon doonaa waxaa loola jeedaa marka markii x la ekaata k 0 la maxaa loola jeedaa kinetic energy meesha ka baxa laga wadaa marka x 0 la ekaatana u waa 0 la egtaa marka xaas maxaa loola jeedaa mar haddii x 0 la ekaato u ma shaqeynaya sababtoo ah u maxay ahayd potential energy maxaa loo baahnaa ama in x la helo ama k in la helo ahayd dhinacan kale aad markii x ay balance noqoto k waxay noqon doontaa 0 maxaa loola jeedaa haddii x meesha timaado kinetic energy ayaa meesha ka baxay ayaa loola jeedaa the total mechanical energy of simple harmonic motion wadarta guud tamarta idoo la joogo simple harmonic motion socodka hirshada fudud is constant isma bedesho oo maxaa loola jeedaa warka aan sheegayna aan ku celino haddii aan rabto total mechanical energy inaan helnaa potential kinetic energy oo lagu daray potential energy haddii midkood la waayana qaybtii la waayay bedelkeed waa in qaybta kala badataa oo sida ay ahaataa constant waa joogto waa and is proportional waxayna saamigan la tahay to the square laba jibaarka of the amplitude ee lixaadka testani waxay tahay
whatever potential energy loss wax walba potential energy is lost kaloma must be gain waa inay ku biiraan kinetic energy waa inay ku biiraan tamar socodka yani potential energy wax ka yaraada ama ay baabado waa inay ku biirtaa kinetic energy sidoo kale hadii kinetic energy ay wax ka yaraada ama ay baabado waa inay potential energy ku biirtaa and vice versa iyo cagsigeeda hadda hadalkan si kooban u dhaho wax walba ka dhuma tamar keyd waxay ku biiri doonaan ama ay ziyaado ku noqon doonaan tamar socodka wax walba tamar socodka kalomana waxay ku biiri doonaan ama ziyaado ku noqon doonaan tamar keydka ay ku noqon doonaan waayahay waa kan marka waxa dawlad sharaxa wasla intii le hadii aan aragno inay dhacdo amplitude-keen inuu minus noqdo waxa dhacaya waxa kor soo amplitude-keen haduu ka tagayo from minus ka tago energy aan ka hadlaynaa iyo total energy hadii amplitude-kaaga uu minus yahay displacement hana kor u sii socdo waxa badan doona potential energy badan doona haduu amplitude-kaaga marka hore balance aha balse uu minus sameeyna oo si yaraanayna waxa loola jeedaa waxa si yaraanaya potential energy si yaraanaya kinetic-kaaga badanaya ee loola jeedaa way marka aan hor u socono halka ka arki doona marka when markii the object is at the maximum distance shay markii la geeyo fogaantan ugu dheer tusaalaha moola la kala jiiday waxa la geeyay meesha ugu dheer adaa jiiday xoogga meesha ugu dambaysa waa jiidaysa moola waxay gaarsiin kartaa meel aad jiidi karto ugu dambeyn laakiin meel aadan jiidi karin inay tagaysa moola awood la soo bixisay moola xoogan tahay meesha ugu dambaysa marka geeyso x waxay isku bedeshay plus ama waxay isku bedeshay minus it is rest markii loo eego nagaanshaha markay ku jirtay okay waxaana siinaa la geeyaa sababtoo aad ma sii dhaqaaji kartaa halkaas wixii ka dambeeya markaas waxaa joogta displacement meesha ugu dambeeya ayuu joogaa velocity waa 0 tastan waxay tahay all the energy is form dhamaanta marta oo dhan waxa loo bedelay potential energy maadaama shayga aadan sii jiidi karin adoo meesha ugu dambeeyay aagaysay waxa diyaar loo yahay velocity hadda marka hore 0 jooga laakiin markaad sii daysaba waxa aad u badanaa velocity-ga potential energy nagaanshiina meesha ka bixi doona oo velocity markaas uu 0 aha laakiin wuxuu u diyaarsan yahay wixii ka dambeeya inuu maximum noqdo يدير وياه halkaas waxa dhacaysa marka maadaama velocity 0 uu yahay moolada la kala jeeday oo wali aan la sii deynay gacanta lagu haayo waxaan leenahay markaas waxa lagu helayaa half waxa lagu helayaa m booski v waxaan ku bedelinaa 0 waxaan ku sii dareynaa half k booski head x waxa soo galaya plus ama minus waxa soo galaya amplitude oo yani x tabado jeedid meesha ugu dambaysa la joogaa laakiin markii la sii daayo isla markaa gacanta laga qaado waxa bilaaban doona velocity inuu bato ama x na 0 noqoto waaya marka aan socono marka marna waxa dhici karto half inaad tiraano total energy wuxuu noqon doonaa half k oo ku dhacsan a square oo micnaheedu la jeedo markaasi waxa isbedel ku dhacay markaasi oo halkaas ku dhacay velocity-gana baabay total mechanical energy of the object maxaa leenahay energy-ga guud ee shayga wuxuu noqon doonaa total energy ee shaygu leeyahay wuxuu noqon doonaa in spring ee moolada kinetic marka wuxuu ku jira potential markan dhamaan maadaama velocity 0 uu noqday qaybtan potential kaliya noo hartay note uga marka the total energy of object in simple harmonic motion markii laga hadlayo tamarta guud ee shayga socodka rishada fadan ku jira is proportional wuxuu saamagal leeyahay to the velocity k9ka of the object ee shayga in simple harmonic motion markii laga hadlayo aan ku soo celiyo marka note uga marka the total energy tamarta guud of an object shay in simple harmonic motion markii laga hadlayo ama simple harmonic socodka hirasho markii laga hadlayo is direct proportion wuxuu saamagal leeyahay to the square laba jibaarka laba jibaarka of the amplitude-ka oo maxaa loola jeedaa sawirkan fiiri hadii la rabo total mechanical energy la helo waa in x la bixiyaa oo lagu bedelaa amplitude waa marka uu velocity 0 noqdo laakiin the velocity of the object marka velocity of the object kaynaanka shayna is given waxa lagu heli karaa by formula velocity laba jirto maximum velocity iyo waxa jirto normal velocity waxa la kaliya horta goormo yimaada maximum velocity ama goormo yimaada normal velocity wuxuu yimaadaa markii kinetic energy shaqeynayo potential energy shaqeynayo velocity-ga formula soo dhaxgelayo oo aan lahayn half mv square aqoon velocity meesha ku jiro waxaan leenahay waa normal velocity haddii kaas velocity ahaan loo raadinayo waxaa lagu heli karaa radical inaad tiraahdo plus or minus k oo awoodda moolada ku kaysan oo loo qeybiyo m oo ah maaska oo ku dhacsan bracket for amplitude square oo laga gooyay x square lagu helaa dhamaan calaamadaasna ugu xididku way ku wada jirtaa arda qaar laga yaabo inay half ka dhigaan qaladan imaan doona
waa markii velocity la raadinayo when markii object when markii the oscillating object markii shayga dhaqaaqayo pass through markuu sii marayo equilibrium position barta nagaanshaha mar hadii barta nagaanshaha la joogo waa 0 barta la marayo 0 equilibrium position waxa x ka 0 noqonaa haduu x 0 noqdana waxa dhacaysa markii qaybtii potential energy oo dhan inay baabacdo hadii potential energy baabacdo sida aan naqaanaan sheeganay qaybtii lunda qaybta kala ziyaadayso kinetic energy isbedela halkan waxa ku imaan doona marka velocity gain aha 1/2 mv square v waxa isku bedel doona maximum oo waxay noqon doontaa in lagu helaa formula oo noqon doona half mv or maximum square half mv maximum square noqon doontaa okay the potential energy is 0 potential energy ga tamarkeedka 0 noqonaya at instance isla markaas all energy dhamaanta martooda waxay isku bedel doontaa kinetic energy tamar socod isku bedel doontaa and then halka waxa imaan doona the maximum velocity ga wuxuu noqon doonaa mid ku sareeya given formula lagu helaa velocity gaas dii lacag gaar ahaan lagu dino wuxuu noqon doonaa in ay iraado maximum velocity waxa lagu helaa radical k over m oo la raaciyo a dana maanta xididka banaanka ay ka taalaa inta waxa noogu qoran qaabka loo daraafay oo inaan ku wararta laga yaaba example ka taas u gali doonaa waxaan ka hadlaynaa marka example 1.9 a block culays with a mass or leh a block with mass shay culus oo isku xiran ayaa culayskiisu la eg yahay 0.5 kilogram ever dhibic 5 kilogram oo la mid yahay sitting waxa la dul saaray on frictionless surface ooga aan isxoqeynin ayaa la dul saaray is connected waxa lagu sii xiriiriyay ama lagu dul xiray light spring moola iska tabaryar that has oo leh spring constant awood joogto ah oo moolada ku jirta oo gaaraysa 180 newton per meter if the block is displaced hadii culays is haysta oo barbax keenay gaaraya 15 cm 15 cm gaaraya from its equilibrium barta nagaanshaha markii laga soo tago equilibrium position barta nagaanshaha markii laga soo tago unreleased la sii daayo what muxuu noqon doonaa the total energy tamarta guud maxay noqon doontaa of the system su'aasha qodobkeeda koowaad ee waxa lagu diray total energy of the system tamarta guud ee xanaankaas ama hawshaas meesha ka dhacday lambarka qodobka labaad ee b ee su'aasha lagu diray waxa lagu dhahay the speed of the block xawaaraha culays is haysta when markii iris uu barbax keeno gaaraya iris uu noqdo 10 cm 20 cm markii laga soo dhaqmo from its equilibrium position bartiisa nagaanshaha waxa laga rabaa inaad sheegto waxa lagu diray xawaarihi ayaa laga rabaa markuu blogga barbax ku yimaado 20 cm barta nagaanshaha laga soo tago qodobkeena b qodobkeena c waxa lagu dhahay waxaad sheegtaa the maximum speed waxaad sheegtaa xawaaraha ugu sareeya ayaa laga rabaa speedka ugu sareeya kii normal speed laga rabaa the maximum speed xawaaraha ugu sareeya of the block uu sameyn karaayo blogga ayaa laga rabaa waxaan toos u aadi doonaa sabuuradeena givinka lagu siiyay halka lagu diyaariyo ah masska inuu yahay 0.5 kilogram waxa kale lagu siiyay sidoo kale k inay kula eg tahay 180 newton per meter waxa kale lagu siiyay amplitude kaaga oo la eg 15 cm oo loo qori karaa mitir ahaan 0.15 waan qana 100 loo qaybinayaa centimeter markii mitir loo bedelayo x lagu siiyay x waxay la eg tahay 10 cm waxaan ka dhigaynaa mitir 10 cm da 100 loo qaybinayo noqon doontaa 0.1 mitir marka sabuurada la aadina aan ku shaqeynayna giving nala siiyay aan ku shaqeynayna insha Allah solution aan dhahno marka hore solution aan dhahno midabkan iska bedelayaa si midab qurxoon oo jawaabta loo qaadan karo aan u helan okay waxaan leenahay maxaa giving noo aha waxaa giving noo aha ku waxaan la diray horta energy aan la diray energy waxa lagu helayaa marka hadda hore u sii galno oo waqti isaga dhameyn energy waxa lagu helayaa maadaama meeshan uu yaalo amplitude mar hadduu amplitude yaalo waxaa laga wadaa qaybta kale ee potential energy xoogan kinetic energy waa 0 maxaa yeelay velocity 0 loo jeedaa marka qaacadna ku shaqeyn waxay noqon doontaa 1/2 waxay noqon doontaa k a square qaacadaas ay noqon doontaa taasaan ku shaqeynayna maxaa yeelay velocity ma yaalo anoo giving kan fiirnaa waxaan halkaas ku hayaa k na waa hayaa a na waa hayaa m na waa hayaa sidaas hayaa imar x la siiyay oo qodobka b daas lagu siiyay marka aan ku shaqeeyo halka iga imaan doona aan xalinaynaa halfka noo qor marka hore k qiimo ahaysan maxaa waaye halfka noo qor k qiimo ahaysan maxaa waaye waxaan k haysanaa 180 halbeeg waa ka tagi kartaa dib male dib waan ka raacin doontaa unit ugu dambeeyo amplitude square amplitude ka maxaa haysataa macallin 15 cm mitir tan ka dhigno waxay noqonaysaa hore soo sheegnay waxay noqonaysaa 0.15 marka 0.15 kaas qaado dan square garay 0.15 kaas qaado square garay marka 0.15 square garay marka intaas square garayso aad toos calculator kaaga u geliso
jawaabta ku soo baxaysa waxay noqon doontaa 2 joule. 2 joule ay noqon doontaa. halka waxa ugu jawaabnay qodobkeeni ee su'aasha wada la weydiiyay ahayd total energy. total energy-ga sidaas ayaan ku xalinay. hadda waxaan gali doonaa qodobkeeni kale b maxaana loo diray asna aan fiirino waxaana loo diray b waxaana loo diray velocity ama normal velocity. velocity waxaa lagu helayaa haddaan xoogaa qaacidada dib u qorno xididkii noo sameey. halka waxaan ku qoraynaa k over m ayay noqon doontaa xididka ku wada jira intaas bracket for amplitude square laga jaray x square ay noqon doontaa. marka xididkan ugu markaan dhammaan uu ku wada jiraa oo qayb kamid ah kaliya kama jiro. adoo intaas haysta marka qaacidada noo dabaq waxaan leenahay xididka dib noogu samee xidid dheer noo samee geeska gees gaaraya. kadib waxaan sameynaa k wuxuu ahaa 180 m keena muxuu ahaa mass keena muxuu ahaa 0.5 ayuu ahaa ama 0.5 ayuu ahaa. amplitude keena muxuu ahaa qaybta mitirka qaado waa 0.15 oo ka jar waxaa ka goysaa marka 15 waxaa ka goysaa x taada u taagan 0.1 waxaa yeelay 10 ay ahayd mitir loo bedelo 0.1 ay noqonay. marka qaybtaan isku wargaray intaas bracket ku soo xir. marka intaas bracket ku soo xirto jawaabta kaaga soo baxaysa waxay noqon doontaa xididda ka saarto oo scientific toos ah ugu jawaabta ku soo baxaysa waxay noqon doontaa oo ku imaan doona 2.8. marka meesha inaan ugu yaraato laga kasaan qori doona 2.8 maadaama waxa laga hadlayo uu yahay velocity halbeegis wuxuu noqon doonaa meter per second noqon doonaa. halkaas waxaan uga baxnay qodobkeeni b jawaabtiisana waa taa. waxaan sii geli doonaa marka qodobkeeni c maxaana loo diray maximum velocity ayaana laga rabaa. qodobkeeni c waxaana loo diray maximum velocity maxaan ku helaynay xidid oo gudaha ku jira k over m iyo amplitude oo banaanka yaala. amplitude maanta xididka kuma jiro banaanka ka yaalaa waxa uu qaadanay inuu dhexda ku jiro. marka aan ku shaqeyno xididka dibna ugu qor k waxaan haysanaa 180 k waxaanu haysanaa 180 ayaan haysanaa k waxaan haysanaa 180 hoose waxay noo xididka la hoos ku jira m waxay noo tahay 0.5 amplitude aan laga rabaa isku wargay. amplitude keena wuxuu ahaa 0.15 oo maxay ah whole square 0.15 oo maxay ah whole square 0.15 whole square ma laha kan afaniya isku 0.15 kaliya bracket ku soo xir. intaas calculator ka geli. marka intaas calculator geliso jawaabta ku soo baxaysa waxay noqon doontaa 2.8 ay noqon doontaa. maadaama wax laga hadlayo velocity uu yahay wuxuu yeelan doonaa 2.8 ka kan waxaa raaci doona 2.845 raaci doonta. maadaama wax laga hadlayo velocity uu yahay sida kii hore oo kale waxaa raaci doona meter per second. waana qodobkeeni c ama su'aasheeni qodobkeedii c ayaan halkaas ugu jawaabnay. marka saddex su'aal la weydiiyay guud ahaanba sidaasaan ugu jawaabnay. waxaan idinku salaamayaan waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. tani kulantan dambe khayr ayaan idin rajaynaa. waxaan ka shaqeynaa